jaamacadda Hon International University ayaa soo gabagabaysay kulan ay la yeesheen wafdi ka socday jaamacadda ku yaala dalka Itoobiya oo ka mid ahaayeen asaasayaashii jaamacadda Hon International farciga Itoobiya iyo mas'uuliyiin ka socday jaamacadda Haramayo East University ee dalkaas Itoobiya. Istakale isaguna waxa ka soo qayb galay wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha oo ka tirsan boorka ugu sareeya ee jaamacadda Hon International farciga magaalada Boorama, iyadoo kulankaas lagu gorfeeyay qodobo muhiim ah oo ay ka mid ahaayeen in sare loo qaado tayada waxbarasho adeega bulshada iyo cilmi baadhista faraca Boorama, in la xoojiyo iyo khibrada wadaaga faraca Boorama iyo jaamacadahaas. Ugu horeyn mas'uuliyiinta faraca Boorama ayaa waxay halka ka soo jeediyeen warbixino dhinacyo badan taabanaya. Kadib waxa halkaas ka hadlay Dr. Tasfahun iyo Dr. Malkusu, waxayna xuseen in ardayga jaamacadda Hon farciga magaalada Boorama inuu la mid yahay ardayda Itoobiya wax ka barata, waxayna wada isticmaalaan manhajka Itoobiya, waxayna qaadanayaan shahaado isku mid ah. Sidoo kale waxa ay si practical ah ku qaadan karaan dalka gudihiisa iyo waliba dalkaasi Itoobiya. waxa kale oo ay tilmaameen in ay ku faraxsan yihiin dadaalka iyo horumarka muddada gaaban ee mas'uuliyiinta faraca Boorama gaarsiiyeen jaamacadda, waxayna tilmaameen in ay ku kalsoon yihiin in manhajka Itoobiya soo saaro arday waxbarasho hufan oo wax ka qaban kara baahiyaha bulshada ee kala duwan. Waxaana isaguna halkaas ka hadlay wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha Somaliland Cumar Yar oo hoosta ka xariiqay in la soo saaro arday tayo aqooneed leh, kartina u leh shaqaysan kara, waxna tari kara dalka iyo dadkaba. ugu dambeyn waxa ay jaamacadda ugu ballan qaadeen in agab waxbarasho iyo buugaag la soo gaarsiin doono, in sare ay u qaadi doonaan tababarka xirfadaha shaqaalaha qaybta Boorama, in ay jaamacaddu la wadaagi karto shaqaale xirfad leh faracyada Itoobiya, in ay diyaar u yihiin la shaqaynta wasaaradaha Somaliland dhinacyada horumarka bulshada, cilmi baarista iyo wixii kale ee looga baahdo. Isku soo wada duubo muddada gaaban ee jirta jaamacadda Hon International University College ee magaalada Boorama ayaa waxa lagu xasuustaa inay dardar gelisay horumarka waxbarasho ee guud ahaan gobolka iyo dalkaba. Waa jaamacadda Somaliland Space Channel Boorama.